Dhulboobka caasimadda Muqdisho ayaa maraya heerkii ugu sarreeyay markaana cadaadiskii ugu xooggan waxa uu saaran yahay shacabka ku nool degmada Daynile oo markaan dareemaya in dowladdu si kastaba ula dagaalamayso si looga barakiciyo dhul baaxadiisu aad u weyn yahay. Warar kala duwan iyo xogo uu helay Garsoor TV waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyay ay xirtay laga soo bilaabo ex-control Afgooye ilaa iyo aargada Daynile, halkaas oo luuq walba xaafadaha ka soo baxa la dhigay dhagxaan waaweyn, taas oo muujinaysa durba go'doon la saaray shacabka ku dhaqan degmada Daynile si xoog looga barakiciyo aagaas oo maalmihii ugu dambeeyay qowleysatada dhulka ku mashquulsaneed. Shacabka Bangala iyo Haanta Dheer iyo xaafadaha Kurdama ayaa iyaguna dhowaan la sheegay in dowladdu ay wargelisay in ay baneeyaan dhulkaasi maadaama loogu sheegay in uu yahay dhul dowladdu ay leedahay. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay qorsheynaysaa in afarta jiho kaga soo qaado weerar iyadoo u adeegsanaysa gawaarida gaashaman iyo diyaaradaha daroonka ah oo lagu beegsanayo shacabka ku dhaqan degmada Daynile. Talaabadan khatarta ah waxa ay horseedi kartaa dhibaatooyin bani'aadanimo oo baahsan, barakac ballaaran iyo khasaaro naf iyo maalba leh maadaama ay degmadu ay ku nool yihiin dad rayid ah oo aan waxba galabsan, gaar ahaan haween, caruur iyo waayeel. Hase yeeshee shacabka ayaa sheegay in dhulkaas in ay iyagu leeyihiin, dowladduna si ula kac ah ay guryahoodii u burburinayso, iyaga oo ku eedeeyay madaxweynaha muddaxileedkiis kasii dhammaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo ganacsatada in ay ka sameeyaan lacago sharci darro ah. Dhowr cisho ka hor degmada Daynile waxaa ka dhacay banaanbax waaweyn oo loogu soo horjeedo barakicinta dowladda, waxaana halkaasi rasaas lagu furay shacabka banaanbaxayay, taas oo dhalisay dhimasho iyo dhaawac. Dhammaan tacdiyadaas waxba la iskama weydiin oo waxaa laga soo qaaday inay waxba dhicin. Degmada Daynile oo hadda ah degmada inta badan ka nabad gashay barakicinta iyo dhulboobka dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa la soo saaray cadaadis xooggan iyo culays weyn oo la xiriira shacabkaasi si kastaba loo cunad qabateeyo si ugu yaraan loo fuliyo dalabka dowladda ah in dadkaasi ay ka barakiciyaan. Madaxweynaha waqtigiis kasii dhammaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa weli kama tanaasulin dhulboobka iyo barakicinta shacabka, xilli loo jeedinayo maalmihii ugu dambeeyay in dowladdu ay ku mashquulin arrimaha dhulka, taasi oo ka dhigan in madaxweynaha waqtigiisa kasii dhammaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud iska hindhitirayo baaqyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, taas oo madaxweynaha waqtigiisa kasii dhammaanayo ugu dalbadeen inuu joojiyo tacaddiga gudaha ah ee dadka barakacayaasha ah iyo kala qaybinta siyaasadda gudaha uu raadiyo midnimo.